ciidamo ka tirsan nabad sugidda Soomaaliya ayaa si weyn u xaqiijinaya amniga magaalada Dhuusamareeb oo uu shalay ka furmay shirka madaxweynayaasha maamul goboleedyada dalka. wadooyinka waaweyn ee Dhuusamareeb ayaa waxaa la geeyay ciidamo badan kuwaas oo baaritaano kala duwan ku sameynaya gaadiidka isla markaana baro kontarool ka sameystay magaalada dhexdeeda. gudoomiye ku-xigeenka magaalada Dhuusamareeb oo warbaahinta la hadlay ayaa tilmaamay inay gudanayaan waajibaadka ka saaran amniga, isagoo bulshada Dhuusamareeb kaga mahadceliyay wada shaqaynta ay u muujiyaan laamaha amniga. saraakiisha si adkeeya amniga maalmahan shirarkii ka socday caasimadda oo aad ogeedeen miisaanka ay lahaayeen. waxaad dareemaysaan amni ay gacanta ku hayaan ciidamada amniga qaybahooda kala duwan sida nabad sugidda, booliiska, militariga iyo ciidamada kale ee dawladda oo meeshan ku sugan. aad iyo aad ay u mahadsan yihiin, shaqo fiican bay qabteen, amnigu aad u sugan yahay. dadka martidaana waxaan leenahay soo dhowaada caasimadda Galmudug Dhuusamareeb ku soo dhowaada, iyo dadka kale ee martida oo la socda maxaa tiraahdaa madaxda maamul goboleedyada iyo dhammaantood iyo cid kastoo Soomaaliyeed waxaan ku soo dhaweynaynaa caasimadda Dhuusamareeb. waa meel amnigeedu uu 100% huban yahay, fiican yahay, oo aad dareemayso marka aad ku sugan tahay inaad amni haysato. waxaan leenahay arintaas Ilaahay baa awalan aan uga mahadnaqaynaa, bacdal waxaan uga mahad celinaynaa ciidamadeena qaaliga ah oo sharafta leh oo aad iyo aad uga shaqeeya amniga oo habeen iyo maalin u soo jeeda. waxaad u jeedaan meel kasta inay maalintii iyo habeenkiiba jidadkay joogaan, howlgallay ka shaqaynayaan. waxa waaye ma seexdaan aan leenahay saacado kooban magaaladaas way socdaan, way ka shaqaynayaan. marka aad iyo aadan idinkana inagu mahad celinaynaa anigoo ku hadlaya afka caasimadda ama maamulka caasimadda afkooda anigoo ku hadlaya. waxaan leenahay aad iyo aad ay u mahadsan yihiin ciidamadeena sharafta badan. waxa waaye magaaladan habeenkii iyo maalintiiba waad ka shaqaysaan. insha Allah bilkariim hadduu Ilaahay yiraahdana saas meeshaas ka sii wada waa ula sii dhawaanaysaan. waxa waaye ayagaan marka aan kun iyo kow jeer u mahad celinaynaa, mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraad. magaalada Dhuusamareeb ayaa waxaa ku sugan madaxweynayaasha maamul goboleedyada dalka sida Jubbaland, Koonfur Galbeed, Hirshabelle, Puntland iyo Galmudug, iyagoona wada kulamo gaar ah oo ay ku yeelanayaan magaalada.